بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad nagala socotaan waa Sooyaal Tube waa markale iyo saaxiibkiina oo idin lees ku soo laabasho wacan insha Allah caawa waxaan halkan doonaynaa inaan ka soo jeedino qiso yar oo ku dhacday gabar Carbeed misna aan rajaynayo inay ku dhacday in badan oo Soomaaliyeed. qisadan waxaan u soo qaadanayaa inay kuwana qaataan gabdho badan Soomaaliyeed oo ay dhibaatadan oo kale ku dhacday misna ka niyad jabay nolosha. qisadan runaantii waxaan rajaynayaa inay waana qaadasho noqoto dad badan oo hadda wadadaas inay maraan rabaan tusaale ay u noqoto ay ka istaagaan. gabadhan Carbeed waxay leedahay waxaan ahay 44 sano jir, wax guura oo isoo horumarayna ma jiro oo man guursan. wiil baa waxaan ka bartay qadka internetka wiil ka bartay. wiilka markaan bartay kadib waan isfahamnay waan isdhexgalnay kadibna wuxuu ii balan qaaday oo uu ugu dhaartay inuu ii guursanayo. kadib markuu intaas ii balan qaaday wuxuu iga codsaday inaan jirkayga tuso si live muusan igu imaanin. qadka internetka baan jirkayga ka tusay, jirkayga buu daawaday kadibna muun ii guursanin. markaas kadib oo rabo oo kaliya jirkayga inuu ku raaxaysto markaan ogaaday waan ka shaqeeyay arrintii. markaan ka shaqeeyay kadib waxaan hadda aan sheekhu aan ku weydiinayaa aniga zaaniyad miyaan ahay oo waxaan soo galay waan ka mid noqonayaa kuwii Allah subhanahu wa ta'ala u yiri wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. naagta zaaniyada ma guursato oo ma guursado ilaa nin zaani ah oo asagana zinaysto iyadoo kala ah aw ama mushrikin mid gaal. sheekhu midaas biyadmiyaan soo galaya waxaan rajaynayaa waan jeclahay inaan ka toobad keeno mana aqaano waxaan sameeyo. waxaana aan ka codsanayaa oo aan ka baryayaa inaad Allah subhanahu wa ta'ala iga barisid dhowrsani iyo guur xalaal ah. sheekhi wuxuu ugu jawaabay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وحويري شيخ بعد الاستفتاح وحويري وحمال محن لو يقانو حرير كجعيل أي كده حياة لن يرد كو ويلش أي جوده كده حياة وحلو يقانو يعني دونيس كوف لو يقانو وعير يعني كده حمر دانك انترنت وعير والباب شر iyo fasaad bisna dadka ufura yani irdaha muharramaadka yani xaraamta ufura weey. marka meeshan uu leeyahay waxaan shaki aan ahayn in ficiladan aad ku dhacday adiga oo yani internetka aad ka samayseen adiga emailkaasi ama telefoon ahaado waa ficil xaraan ah waana dambi ha ahaado wax zina ka sokeeya ha ahaado. laakiin rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waqad samaaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu magacaabay zina inay zina tahay. waayo abi hurayra radiyallahu anhu rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bari xadiis rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. عليه قفك يعني ابن آدم وحاله قري قيبتيسة زنا وايو عليه مشان إيش هو يزني ستا زنا وين وحفي رسا دكتور ويزينيستا زينيد waa inay wax maqashaa. carabku wuu ziinaystaa zinadiisu waa inuu waa hadalka. gacantu way ziinaystaa zinadeedu waa qabashada. lugtana way ziinaystaa zinadeedu waa socodka meesha xumaanta lagu sameeyo aad u socoto waa zina ayadana. qalbigana wuu ziinaystaa oo wixii yani maxaa Allah uu tamaniyaa inuu sameeyo ficilkaasi uu tamaniyaa yani wuu haweystaa uu tamaniyaa kadibna waxaa arinkaas rumeeya farjiga ama beeniya
متفق على حديث كان وحديث متفقة مركا ماشان إن شاء الله وحمدونيا إن قبلها الصوماليات عن أجدده إن يعني مع الله في عفعاشهم أي والد كود أن أجين أي هوس قسمين يان بسنا ويلشان شيء إن يجور كدونا يان بريتنا أن جرسين إنه ما يلها مصدق إن يكدر دونادان إن يكفر صدان إن يكون توبان waayo xumaantan adiga maanta aad ku sameeynaysid in daaha gadaashiisa Allah subhanahu wa ta'ala kama qarsoono biritana waad hortagaysaa insha Allah marka ilaahay ka cabsada oo xumaanta aad waalidkiin kala dhumanaysaan kawan tooba waayo Allah subhanahu wa ta'ala hadduu maanta ceebtaada asturo الحمد لله ده وكتوبت كين لكن ما حدث كسعته معلن وتفشل ميسا أو الله سبحانه وتعالى وكعيبين انت هذا عيبه هذا كتوبت كين وكله